adiga afar toban jir matida boqol ma taa macna maya wiilkaaga meeqo jira maam 14 sano maam eeho wada wiilkaaga hadda waa maasantii odagan u sheeg wiilkaaga mas'uuliyada ka saaran dheh waa maasantii insha Allah lo'dii ka quminaya isla markii uu ka qumiyana taleefankiisu gacanta ka isagoo ka haysta toos ay uga dafaayaan wayna ka daba ordaa nin shukaas ku jira soo orday xabado ku riday mootadii markaa u dhaweeyay xabadii uu soo riday haddaysan taas dhici lahayn maanta waxay ahaa lahayd marxumayaal inta kaaga dhaceen had garka meesha sheekh cabdi lagu dhaamiya sheekh cabdina neestiga saaxiibtaa ma soo farjas adiga sheekh cabdi madoobe oo jawi qaadashada ay isugu baxdo ayaa wada dejiyey kaartada gacan marinta magaalada iyadoo la adeegsanayo bistoolad 18 qaad ah waxayna dhiiqo lugaha u geliyeen tuura boqol oo ahaa arday gelin ku shaqaysan jiray mootafekon kadib markii isagoo wada labadooda shukaansina laga yimid ay waddada kula kulmeen dhowr neef oo lo ah jidkana gooyey balse qasaayo oo warmoog ah ayaa caawiyey xoolahana ka kiciyey waddada halkii mahadsanid ay dhihi lahaayeen ayay ka dhaceen taleefankiisa taasi oo ahayd midda soo dedejisay fashilkooda qayladhaan uu afka furtay ayaa soo bixisay isxilqaamo hubaysnaa xabado dhaawac sababay ayuu riday sheekh cabdi rasaastii jawaabta ahayd ayaana isku martay ardaygii la qalday ee darawalka ahaa iyo sheekh cabdi qudhiisa dabla nisa cabdiqani mustaf cumar gaabow oo sheekh cabdi lagu naanayso iyo dabla xoogga cabbaas cabdulla nuur oo isna magaalka ku jooga ilka casiyi madoobe labadooda ma diidana inay rideen xabadaha dheliyey dhaawaca dhibaneed mumtaas maxamed hiraabe balse waxay inkirsan yihiin taleefan samsun ah inay ka dhaceen cabdixakiin maxamed maxamuud qasaaye halka cabdisamed maxamed taakow tuura boqolna uu taagan yahay waa lii qalday dhagarta socotayna wax kama ogeyn waxaa lagu haystaa dhac iyo dhaawac cabdixakiinna waa dhacday mumtaasna waa dhaawacday saasaa lagu haystaa eedaas ma gasha mise ma galan dooda ka qabtaa doodaa ka qabaa doodaada caddee kiiskaas leegu eedeeyey cabdiqani ahaan anigu mooto ku soo baxay mooto saaran cabaas la socdo mootada aawadne kii soo dhex gashay baashi lo' meesha imaaday lo'dii ninaa noogu soo buriyay lo'da ninku noogu buraayey mootadii cunugiiraa noo wada waa qalqaliye mootadii yaa guddoon miratay ninkan kadaa gadaal soo maray oo dhaca u geysteen allahi ninkaan iyo cabbaashaa isku dhaceen waa murmeen intay murmaayeen nin xabad noogu bilaabo dadna waa qeyliyeen xabadda la igu bilaabo xabad markay igu dhacdaa xabad ride dhaawacaas aa geystane hal xabaa ridi baalootadaas aa ridi inaani dhaawacay iyo ninka kale inuu dhaawacay ma caddo dhaawac meesha ka dhashay miya meesha ka dhashaa xabadaha isku furnoo ka dhashay xabadda markay igu dhacdaan xabad ridi aad ma xabad ku dhacay lugaan dhaawac ka ah lo'da haddii la qalqalo kadib xabad ma la isku bilaabaa macnaha see waay mootada ninka lo'da soo buraay iyo ninka mootada gadaal ka saaran aa isku dhaceen markaa isku dhaceen ninkaan mootadaana lagdinay naga wareeg oo dhaaya saanta u tuuraay iyo ninkaan qayli oo geliyey qaylida oo geliyey aa meesha xabada ka dhasheen ninaa meesha gadaal geeskeena xabada ka soo riday xabadda markay ugu dhacdaa xabadii ridi ninka xabadda ku ridaa maxaa ka rabaa ninka oo lo'da buraay aa qayliye dad kalena gadaal ay ka qayliyeen ninka maxaa ka samaysaa lo'da buraay marka oo qaylina waxa laga sameeyay meel ninkaan isku dhaceen oo mootada gadaal ka saarnay aa kala tuuray qori ma wato ninkaas qori ma wadaan adiga kaliya ma hubisnaa ani kaliya hubaysnaa dhaca moobela qaatana ladan dhaca wax ka jira ma leh yaa wada mootada magaciisa qofkooda casimada wada madanu ku doomiye ninka cunugan yaraa mootada nagu waday aniga gabar saaxiibtii casho u keenay waa isla soo casheenay raggaana meesha ku soo wada casheenay waa soo baxnay liida u soconay soo naqitaanka soo baxnay wadada ku soo socono rag badan oo meesha oo game adiga base baabajiya ama base ku ciyaara meesha wada fadhiyeen iyo oday meesha waa fadhiyey oo dukaanka agtiisa fadhiyey oday waa ilaa oo adiga xoogaa 50 iyo adiga 40 meelaas jiro mudane gudoomiye cunugan loo nagu soo qumiyey loo markuu nagu soo qumiyey aniga waa qalqalnay cunuga mootada laga diiyo ani cunuga isku qalqeen anigana macnaha saaxiibtiya macnaha isku soo dhacnay macnaha kadib ninkan markuu qalqalay ninkan waa kala gamaaniga markaa galgamnay ninkan waa qeelshay rag meesha joogo macnaha waxa u dilaysiina dhan ninkii oo cunugaani ay la lashtay oo biskoolada wataan xabaday haay oo meesha fadhiya xabad nagu soo riday xabad markuu nagu soo riday ninkan xabada ku dhacday mid labaad uu soo ceshay mid saddexaad uu soo ceshay mid afraad uu soo ceshay ninkan saaxiibkii kadib wax xabada sidoo hal baalooto sidoo ugu jawaabay kadib cunugan yaraa mootada kadib cunugan wuxuu yiri ninkan waa dilira mootada sheelray oo shacaba meesha dhalinyaro meesha buuxday sida mootada lagu sheelray mobilka yaa qaato mobil wax la qaado meesha meel mid gudoomiye adiga isku soo dhacdeen saaxiibtii aan macnaha soo forjeesay kadib macnaha liidan u socon maaho mid gudoomiye kadib cunugan marka loo nagu soo qumiyay waa ku qalqeeliyay marka ku qalqeeliyay way Afrika dii waa kalgam mobilka qaadmay marka mobilka ma qaadan saaxiibtaa ma soo forjees adiga ha cashadii awd waa soo casheen
hadalaa kusoo kala tagan macnaha waxaan bil aadan wax waa la isku dhici karaa moogta mobile ma qaadeen maya gabadha waa dhaawacmantay leeh wax laga qaadaa idin ma jirin miya xabada u tagtay miya gabadha xabadda way sartay adiga ku dhacay gabadha way sartay taas way jirtaa iyada mesh ma taagnin miya xabada u tagtay gabadha meel ay ku dhaawacantay kama warhayno inay xaafad ugu gasho inay meel fadhido inay socotay kama warhayno wiilka mootada asaas kale miya cabdi samed maya cunugan iskuul dhigtaa waalidkiisa mootada macnaha oo adiga oo ku biila macnaha mootada asi kiro ku wadiya oo ku shaqeystaa oo ku shaqeeya cunug macnaha habeenkii ku shaqeeya ima adiga galbi dhac ma geysan adiga ma wax dhac Allah ma geysan booskaaga aw meesha ka shaqeynaysaa ciidan Soomaaliya ha fasaxa ku jiri wax qorar laana moodan wax aan hubin laana moodan u dhib wiilkeer mootada ma qasana wada 2 bil amniit leh wadaad maxaa ku qabataa waa ku shaqeeyaa mooto faykon ma ku shaqeysaa mise bajaaj waa feeko ma xakamay kartaa wadi kartaa waxyara xakamay karaa maxaa ku qaadaa marka ku shaqeeyay halna ugu badan oo qaadi kara halna ugu badan hadda laba wadamo labaas qof adaa wadamo ninkan wuxuu dhahay shukaansi u socday ninkan kale inuu ku jiro ma oginaane yaa shukaansi u socdo Abbas shukaansi yar waa u dhahay wadniyo inta waa liidano ay geeyo dhahay ay hal doolar saashala ku soo ugu qaad hayaa dhawa soo wadi maqaad la keen badaro ka qaadiyo waa wadaadana xaafad saaxiibtiisa dhiga kadib anku aniga daqani banaanka ku sugeen oo saaxiibtiisa badar soo anuguna badaro meesha oo noo keen badara meesha ku cunna kadib waa soo baxnay oo saan dhaadan liida isigeey kadib baa fasax soo dhaay waa soo wada bo laami marka ku dhicirnabo lo iyo mootada bacaad iyo wax ala galan wiilkii Abbas isku dhacay marka kale inta soo raacay Abbas ma qofka kale Cabdiqani markuu saaxiibtay ay waday ilaahay oo fagaxooda soo raacay yaa saaxiib loo waday Cabdiqani mise Abbas saaxiibtiisa wadaa marka Cabdiqani oo raacday ninkan saasoo ku soo raacay haddana aan xabada u taalo sinta dhaawacana ad ma xabad ku taala intii kaaga dhacday sinta goormee islaameenkiiba labadiina ma idin ku dhacday laba qof xabad isku martay sinta markii waa ku sartamaya ma way fadhisaadla xabad ma kugu jirto adiga 14 jir matiida boqol ma taa macna maya 14 jir ma mooto ka xikar faykol xakamay karo waxaan waxyar la celi karaa maana iskuul dhigtaa fasalkeeta sideedaad magaciisa iskuulka Alfred naanistaada maxaa leeyahay absim tuuri yaa mobilka ya qaatay wax mobil la qaado ma jiro maan adiga dhaawac ku geystay ma wala anaga mootada marka la qalan nimankaana dood ku jirto marka saanta u sii socay xabada u tala dhaay war ninkan uu dil raay sii socda marka ninka xabada badan oo soo furay ana marka waxyar waa isku darsamaaday waa wareeraba xabada markay ugu bilowdeen way u dhacdaa ninkan socda Cabdiqani adan la dil waay marka ana xal ay waa shoogo marka si ay meel u aado way baan islaabinki mootada wada awd ninki la awat iskuula dhigata waan mootana ku shaqeysaa miya labadaba waa qabataa miya gilina wada waxay waalidka inta ma fadhiya hooyo masaabo hooyo mobil la qaata ma jir miya ma gudumi lagu soo daaway miya daawa lagu dir qaska xabadii fadhisa mal khal karaa la 5 bil kadib la qalaa 5 bil kadib oo xaafadii iska joogo marka dhaqan cilna leeyay adiga 20 bil marka ku jiro dhaqan cilna waa soo bixi waa lu daaweeyay dhaay cilmiga mal khal karaa la marka meesha xabad meel halis ku jirta 5 bil kadib la qalaa ninka kursi xaq u dhigay gudaha gelina xaq iska fariisi eedeysanaha koowaad oo ka tirsan nisa iyo eedeysanaha labaad oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed wax kale iskuma aysan keenin waxa isku keenay inay shabakad ku ahaayeen inay dhac ka geystaan degmada Yaaqshiid oo dadka ay nafta u keeneen qorshahooduna ahaa kuna ballameen kaalin shidaal oo ku taala degmada Yaaqshiid halkaas oo ay ku tashadeen inay meeshan dhac ka geystaan sidoo kalena eedeysanaha saddexaad uu wadaha mooto ahaa iyagoo markii ugu horeysana ka bilaabeen xaafadda Ramadaan isla markii meeshii ay rabeen inay ka bilaabaan inay dhaca ka bilaabaan gabar guri hor fadhisay waxay arkeen in kaamiro ku taalo waa ka leexdeen gabbay ka dhaxeen xaafadda kale sii galeen waxa ay dhaca labaad ay ka geysteen xaafadda Tokyo iyada oo halkaas dibanaha xabadda ay ku sareen oo ay sigeen waliba inay dhuunta kaga dhuftaan ay rabeen xabadda ilaahay ma uusan qadarin dhuuntii ay uga wadeen garkay ka sartay xabadda waana mumtaaz maxamed hiraabe iyadana way joogtaa maantay maxkamadduna way ka hor warrami doontaa dhibkii gaaray iyadoo ka warramaysa waxaa jira dhibane ay ka qaateen telefoon dhibanahaas oo lagu magacaabo Cabdixakiin Maxamed Maxamuud Axmed oo naanistiisu ay tahay qasaaye dhibanahaas oo iyagoo mootada wata xaafadda uu fadhiyay soo galeen sidoo kalena ay ku soo dhaceen meesha dhibanuhu joogay inay lo ay fadhisay lo badan dhibanaha ma uusan u maleeyeen inay tooga yihiin dadkan mana uusan isdhihin way ku dhibaateynayaan
lo-daan mootada ka leexi ayuu isdhahayay iyagu caawimaad u fidinay oo insaannimo inuu lo-da ka leexiyay ahayd taas beddelkeeda waxay sameeyeen markii ay jidka uu baneeyey oo uu ka leexiyey lo-dii uu ka qumiyey uu ka kiciyey isla markiiba inay moobeelkiisa isaga ka dafaan waa lama filaan ay ku noqotay dhibanii in moobeelkiisa ay ka dafeen dadkii uu asxaanka u sameynayay oo lo-da ka quminayay oo jidka uu ka sameynayay wuu ka daba cararay ilaa uu gaari waayey halkaas oo markii dambe goobjooge hubaysnaa oo ka tirsan gobolka banaadir ka howlgala oo lagu magacaabo yalxow uu falcelin uu ka soo sameeyey xabadana uu ku soo riday sidaas darteed eedeysanaha labaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan isla markiiba uu bastoolad uu ka dafay saaxiibkiis Cabdiqani isagoo ula jeeday inuu raacda reeb ku sameeyo halkaas oo iyaga laftirkooda ay dhaawac fudud uu ka soo gaaray yalxow oo ka tirsan shaqaalaha maamulka gobolka banaadir ahaana qofkii rasaasiyey eedeysanayaasha kadib markii ay ku soo rideen xabado raacda reeb ah ayaa maxkamadda warbixin ka siiyey sida ay wax u dhaceen qofna waa la dhaawacay qofna waa la dhacay صح see wax u jiraan adiga maxaa ogtahay anoo meel fadhiyo darjiina ama tafeekoona socotaa meesha soo martay wiil ka daba orday wuxuu yiri taleefan iga qaateen waa daba kacay aniga marka waa hubaysan biskoolada wata waa daba kacay oo waxoogaa yar ii jiraanay xabadii ugu soo rideen anigana xabada xooli ugu soo rideen aniga lama baalootaa ku rideen markaas anigana meesha oo ka cararo wiil ay sheegay wiil yar ka daba cararay ka daba orday taleefan iga qaateen aniga marka waa ka daba cararo waxa isla tooray waxa ugu soo qaateen daa u dhaweey xabadii ugu soo rideen anigana xabada ku rideen markaas niman oo hubaysan uma qabeen waa naxay xoogaa asla niman oo wax kala waay meesha ka cararo marka naftiga waa qalqal waa cararo qof dhaawacanta maqash suuxdii dama maqlay in qof dhaawacmay suuxdii la sheega lama amniga ay soo waxay saasi wax u jiraan nimankii oo gabarta dhaawacna waa lahaaya nimankii taleefanka dhacna waa lahaaya imaabay leen marka suuxdii saasa u imaad ani shaqay jira waa imaad taliyaha degmada ay soo waxay waa u tagay marka ribood ay wax uga qoray meesha ka shaqeysa ku qorantaa miya ani shaqaalaha gobolka banaadir ah dawladda hoose ka tirsanaa xaafadda marka ma deganid adiga xaafadda agteeda la degana gabadha yaa dhaawac markii yaa dhaawac gabadha xabadii ku soo rideen ku dhacdo wadadii saas u maraysaa ani ku xabad ma ku ridin niman oo tuuga u qabayo mid iyo wax ku soo qaateen marka u dhaweey xabadii u soo rideen gabadha marka saan la meeshu maraysa xabadii ku dhacdo gabadha xabadii koob ee soo rideen gabadha ku dhacdo kadib ma aragta markii yaa ku sheegay in nimanka la xiriir taliyaha degmada ay soo wacay xaafadda le oo soo wacay la markii uu soo raadiyay suuxdii uu soo wacay waa uu imaaday wuxuu yiri nimanka noocaas yaayeen waana lahaaya adigna xoogaa laga rabaa imaaw dhowr mar tagay qaybta baarista tagay xoogaa laga soo qoray degmada xoogaa laga qoray marka saas ay markii maxkamadda loo baada lagu caalilaa marka saas uu imaaday kuwan hore mu aragto wada taqaanimiin cabaas hore isku aqoon jirnaa bis maana waa habeenkaas ma arkin suuxdii la sheegay marka qolada oo meesha ku jirto inuu taas waa la weydiinaysan cabaaska hadda maxkamadda hor taagan ee eedeysan ayaad ilmaha habaryartihiin Soomaha labada صح xabadihii aariday su'aala laga weydiiyay Soomaha shaqaaqadii dhacday waxaa looga heshiiyey ehelhaan Soomaha meel lagu heshiiyey ma oga warka ma hayo meel lagu heshiiyey meel kale warka ma oga dhaawacaas inuu sababay maxaa cadeynaya ayaga xabadii ay rideen inay sababtay maxaa cadeynaya oo taada aysan sababin xabadda koow ay soo rideen ka bilaabato gabarta jidkay mareysay xabadii koow la soo ridaan ku dhacday eedaa lagu su'aali doona xataa maxaa sabab inay isqabtaan ninkan looda raggan ku celiyay iska ay wada murmeen okay ninkan mootada way ka hor imaadeen wiil yar oo saan socdo ay loo ka leexiyay taleefan uu gacanta ku haysay taleefankay ka soo dafeen mootada markii way soo dhaqaaqday hadii saan soo dhaqaaqday ana agteeda ku timid way gudubtay wiilkan oo ka daba carray arkay ka bacdi taleefan laga qaato yiri waa soo daba kacay marka uu soo dhawaa xabadii ugu soo riday waa maasanta adiga iskrimid Soomaha ana iskrimid shaqaale oo gobolka banaadir biskoolada aad habeenkaas wadato wax sharciyad uma haysto Soomahan waa u haystaa aqoonsi oo dawladdiisa saa u haystaa maxkamad ma la wadaagi kartaa aqoonsigaas iyo meesha wax ka dhacayeen inaad degnayna sheegto Soomaha daay meesha agaarka degan ku laakiin guriga meesha saacadaas meesha maxay ka qabanaysaa adiga habartay guriga degan meesha degan ma guriga ku jirta mise banaankiisa banaanka fadhiyaanay adiga kaliya meeshaas mi adiga fadhiyay mise dad kula fadhiyay gabadha la fadhiyay meesha banaanka habeenkaas meeshaasi dhalinyaro kale tood oo game ku ciyaaraya ayaa jiray Soomahan oo idin dhaxeeyay meesha wiilka mobilka laga qaatay iyo adiga meesha fadhisay dhalinyarada laamiga joogeen meesha dhalinyarada ma joogin habeenkaas ma qiyaasi kartid gabadha dhaawacantay dhanka ay taagneed ama meesha ay ku sugneed Soomahan ha amay gabarta laamiga soo gooyay wadada gooyay ma arkeen maxkamadda maadsanta dhibanad mumtaas maxamed hiraabe oo dhaawac garka uu soo gaaray ayaa iyadana u warantay garsoorka see wax ku gaareen adiga seen wax u dhaceen wallahi see wax u dhaceen ma sheegi kari maxaa la meesha anay ayadaya shax koriso marka meel oo buur oo kor ah way meesha soo socday oo bacdeen xabada ay sarta qol meesha dhibaaya galay
بكره استمي هذا برك هذا في عنا هذا الحمد لله حبدك فوق صوت عادي قفك سوريدا مالك ماي ماشي حبدا اللي اسكو دافسناي وكافو قد 100 دحدا ku jire حبدي كود با kugu dhac mise xabadii labaad kugu dhacay xabadii koowaad intuu kaaga dhaceen garka meesha laf ma ka jabin may iska fadhiis xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxdarkan ku soo bandhigay muuqaal ay duubtay CCTV camera oo laga arkayo qaabka dhac ay u geysteen eedeysanayaasha oo saaran mooto feekoonta oo uu wada ka yahay Cabdisamed labadooduna la saaran yihiin ayaa soo dhaxmaraya xaafadda uu dibanaha Cabdixakiin oo ay taleefanka ay ka qaadanayaan uu joogo lo ayaana meesha fadhisa sida uga jeedna muuqaalka dibanaha uu soo istaagaya isagoo raba inuu asxaan falo uu isleeyahay mootadan jidka u banay ama ka qumi lo'dii uu ka quminaya isla markii uu ka qumiyana taleefankiisu gacanta ka isagoo ka haysta toos ay uga dafaayaan wayna ka daba ordaa isagoo ku qaylinayo ama ku hadaaqayo ereyga tuug sidaas ayuuna kaliftay in yalaxow oo agtiisa fadhiyay oo hubaysan baskooladiisuna ay u sharciyeysan tahay sidaas ayuuna uga falceliyay oo uu nimankii u raacdaystay ilaa ay isaga ay sigeen oo xabadaha ay ku soo rideen xabada in la ridana iyaga bilaabay sababtoo ah waxbay qaateen in la daba ordaayo oo laga daba qaylinayna way arkeen sidaas darteed ay xabadii ugu horeeyay soo rideen iyagu oo faraqabada eedeysanayaashaana ay sidaas ay ku caddahay inay dadkan ay yihiin dad shabakada oo ku talagalay inay dhacaas ay geystaan oo waliba qalqalgeliyaan oo xaafadaas oo dhan ay mobilada ka soo qaataan wayna iswaceen oo galabnimadii ay ku tashanayeen oo ay isla meel dhigeen inay mobile soo urursadaan oo ay dhacaas ay geystaan sidoo kalena ay duufsadeen ninkaas dhalinyarada isagana oo hadeertan soo kacayay dhibkii ay u geysteenna waa kana hadeertan xabadihii inay dhaawac ay kala kulmeen naftirkooda meesha baarihii ka socday hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa natiijada ka soo baxday baaristiisa la wadaagay garsoorka ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamme maxamuud saciid falxad ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaasha ay ku xukunto qodobadii uu ku eedeeyey mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysane cabdiqani mustaf cumar gaabow iyo eedeysane cabbaas cabdulle nuur labadaas eedeysane maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay mid kasta ay ku qaado qodobkii aan ku soo eedeynay sidoo kalena ay ka saarto foorsada ciidanka maadaama aysan ciidannimada aysan u qalmin kii ilaalada shacabka lagu qoray oo loogu talagalay shacabka inuu ilaaliyo oo u naxariistaan oo ay ilaaliyaan oo ay sharafka iyo naftooda iyo wax kasta magaaladaas ay ilaaliyaan uu dadkii ku soo hoos noqday oo iyagii uu dhacay ma istaahilo inuu ilaalada shacabka u sii shaqeeyo sidoo kalena Cabbaas uma qalmo isagana inuu ka mid noqdo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan police militaro oo amniga magaaladan xasiliyay fasaxana aan lahayo leeyahay fasax ma uusan lahayn shaqadiisu ka soo tagay goobtiisa shaqada wuxuu ku tashteen labadoodaba inay dhacaas ay geystaan ay dadka qalqal galiyaan oo ay xaaraan ku qaraabtaan qaab xaaraan ah wax ku raadiyaan mushahar la'aan maaha mid kasta mushahar u qaataa oo ciidamada uu ka qaataa haddana ma aqaan wax ku kalifi karo inay ummadina dhacaan iyagina ciidamadana ay suurad xumeeyaan sidoo kalena ay dhacaas iyo dhibaatadaas ay geystaan sidaas darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay ku qaado qodobadii aan ku soo eedeynay sidoo kalena ay ka saarto foorsada ciidanka maxkamaddana waa mahadsantahay qareennada eedeysanayaasha ayaa jeediyey difaaca muwakkiliintooda una codsaday in la siiyo xorriyaddooda maadaama ay sheegeen inaan loo keenin caddeemo dhammaystiran waxaa dabcan lagu eedeeyey muwakkiliinteenna 3 qodob oo kala ah 480 485 440 waxaa la yidhi 2 qodob waxaa wada galay 2 eedeysane bal maxkamaddu ayadaa inooga cilmi badane hayla aragto qodob waa 484 qodobka xigana waa 485 485 haddiiba laga reebay eedeysanaha saddexaad ee ay da'diisu yar tahay ee Cabdisamed ah maxaa loogu daray 484 oo loo leeyahay 484 geysatay mar haddii la leeyahay waxaa lagu dirqiyey 485 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 485 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed muxuu sababayaa muxuu yani ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa 485 in qof anigoo ah abukaate aan ku dirqiyo qof inaan ku dirqiyo fal xaaraan ah ama fal sharci darro ah samayntiisii haddii la dhaho Cabdisamed waxaa lagu qasbay oo ay ku qasbeen 2 eedeysano kale inuu fal sharci darro sameeyo
waxay noqonaysaa in uu noqdo maanta cabdisamed oo eedaysano ah oo da'diisu ay aad u yar tahay in uusan ahayn nin mas-uuliyad dembi aan qaadi karin halkaas haddaan u dhigno 485 in lagu eedeeyo waa taas laakiin haddaan u qaadana markhaatiyaasha mid ka mida oo maxkamadda horteeda yimid oo mara ka ahaa wixii dhacay ama wax caddaynaa asaga inuu dhaawacay iyo in kale asaga xataa ma sheegi karo wuxuu leeyahay subaxiyaa waxaan ogaaday inay xabadihii qof ay gaareen inahaasoo dhan hadday jiraan 484 ayaa aasaas u ah 484na qofkii dhibanaha ahaa maxkamadda horteeda lama keenin 484 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaa aasaas u ah kow intaan qaranka la gaarin qofa aasaas u ah qofkii 484 lama keenin mana ka muuqato kaamirada haddii la fiiriyo CC kaamirada ka muuqato waxaad arkaysaa mooto socoto oo aan laga degaynin nin dhalinyarana gees la iskaga bixinayo intaasaa ka muuqata xataa mootada kama degayaan sida ka muuqata videoga CC kaamirada marka hadda aan daawanay arrinta aan rabo inaan tilmaamo waxay tahay xabadaha niman dhalinyaraha yani u qalmaa xataa psychological element markii la fiiriyo facekooda markii la fiiriyo nimankan dhalinyarada ah ma aha niman iyo habdhaqankooda iyo qaab ahaan iyo nuxur ahaan xataa maxkamadda dhaqan ahaan way ka fahmi kartaa qaabkooda iyo maaragtay inaysan ahaynba niman samayn kara bal ayagaaba dhaawacan dhibaato ku dhacday wiilkaas yarka hadda waxaa ku jirta xabaddii ninkaa kale waxaa ku jirta asagana xabaddii yaa dhex martay fal dhaca inuu dhacay xataa haddiiba la dhaha xataa dhacii ah oo qofkii la dhacay haddii la yidhaahdo dhac atamtii oo ahaa lahaa waa la isku dayay lama keenin isku daygii kaba soo qaadba ha la yidhahdo dhac waa la isku dayay laakiin haddii la isku dayay isku dayaddii laftirkeeda laguma eedeyn shanqar waxbaa la dhacayaa la maqlay nin shukaasu ku jiraa soo orday xabadoo ku riday mootadii ayagana isbadbaadin si waafaqsan qodobka 36 xeerka ciqaabta Soomaaliya ku jawaabeen oo ah ayagoo isdifaacaya difaacu nafsi ku jira marka maxkamadda ayaan maaragtay u deynaynaa go'aanada kiiskan ku gadaaman caddayn la'aan awgeed waxyaabaha aan tilmaamayna waxaa ka mid a tusaale ahaan oo kale Cabbaas iyo kiiska saldhigga qofka looga dhigay waxa uu ahaa maragga yani wiil iyo ilma habaryar waa labadooda ilma habreed waaye ilma habreed yani ninka ay dhashay habriirtiisa ay dhashay suuragal maaha inuu hore xataa dhac ma ku aqoonin waxba muusan ku aqoonin dhac kumuusan aqoonin ma sheegin ninkaan saas u ahaa dabeecadiisa ma sheegin waxba ma sheegin hadduu dhihi lahaa xataa ninkaan nin caadaysta waayo waxbay ahaaleed sidaas daraaddeeda waxyaaba badanaa kiiskan ku gadaaman oo u baahan in la caddeeyo u baahnaa sida in la baaro forensic loo diro maxkamadda difaaca inta qaybta ugu muhiimsan waxaa insha Allah hadduu ilaah yiraahdo tilmaami doonto abukaata xanaan iyo gabagabada ayaad israacsan doonto maxkamaddu way mahadsantahay magacayga waa abukaata xanaan xaashi cali waxaana ka mid ahay qareenadii difaacaya eedeysanayaasha garmaqalkooda maanta maxkamadda ay u fadhiisay saddexda eedeysanuhu nin dhalinyaro ah oo mooto inuu xakameeyo xitaa maxkamaddu ay loojig la naqlaado gudoomiyay maxkamaddu weydiiyay waxa ku kalifaa duruuf nololeed sababtoo ah hooyadiis iyo wuxuu u shaqeynayay aabiis gelinna waxbarashadu aadaay gelinna inuu inta reerka wax ku soo celiyo mootaas ku shaqeeya ayaa loogu dhiibay sababtoo ah duruufta dalka ka jirto iyo qoysaska xaaladda haysto waa dareemi karnaa isagaaba muddo 2 bilood ku dhawo yar wada mootaduna ay tahay mooto kira xitaa isaga uusan lahayn ayaa dhacday dhibkan waxaa dhacday marka mudane gudoomiye mudane garsoore in dhaawiciisa isbitaal la dhigo la daaweeyo daryeeli kaalmo caafimaad loo sameeyo isagoo dhaawicii weli si fiican uga bogsan ehelkiisii si wiilkoodii maadaama la yidhaha dhibaa dhacay waalidkuna ay mas-uul ka yihiin waxay geeyeen dhaqan celin ayagoona awoodin ayay bixiyeen qarash ay ku bixinayeen wiilkaas si mustaqbalkiisa maalintaasi halkaas uga wanaagsanaado goob wax lagu bartaa la geeyey goobtii uu ku jiray hay-adihii ammaanka way uga daba tageen way ka soo bixiyeen waxay dhaheen dembiyuu geystay isla markaana waxaa u baahannahay in la xiro inaana loo heesanba waxaa la yidhahda waxaa qayb ka tahay mootadii wuu qaaday wuu dad saaxiibadiisu waduu geeyey 297 mootadii falku ku geystay la leeyahana lama keenin nin dhalinyaro ah ee la yidhaahdo nabad eenigey goobtaas cid dhahaasaba wax uga qaatan ma jirto maadaama ujeeddada qofka eedeysanaha loo ciqaabo ay tahay in la dhaqan celiyo dhaqan celin reerkiisiyaa geeyey cid haysata ma jirto kiiska waa laga heshiiyey maxay tahay sababta marka hay-adaha dowladda intay ugu daba tageen loo soo waday loo keenay mudane gudoomiye mudane garsoore maxkamad sharafta marka aan uga gudbo arrinta cabdisamed halkaas cabdiqani ma jirto cid caddayn karta horta xabad uu riday inay dhaawacday gabadhaas dhibanada ah sidoo kaleeto ma jirto cid caddayn karta inuu dhac qorshe ah ay u socdeen markii laga soo gudbo waxaa jirta warbixin laga qoray wuxuu sheegay warbixintaas inuu ahaa qof xanuunsan isla markaana isaga laftirkiisa dhaawac gaaray wuxuuna sheegay xabadda uu riday ama rasaasta uu riday ee labada ah ujeedka uu riday inay ahayd
in markuu xanuunsaday isla markaana rasaasta lagu riday uu isaga sameynayay iska caabin amrayna in mootada ay sii socoto isla markaana la sii dhaqaajiyo si ay naftooda badbaadsadaan haddaysan taas dhici lahayn maanta waxay ahaan lahayd marxuumayaal oo meeshaas ayaa dhici lahayd inuu ku dilo maragga lagu magacaabo maxamed isaguna mudane gudoomiye mudane garsoore ehelkiisa ayaa bixiyeen wax kastoo jiraba iyo sabab kastoo u jirtaba arrintii oo heshiis ayaa laga gaaray cabaas sidoo kale isagana mudane gudoomiye mudane garsoore maxkamadda sharafta leh ma jirto caddayn karta in moobeelkaas isaga uu ka qaaday dhibanahaasi kaamirada ayaa caddaynaysaa la yidhaahday kaamiradan wax caddayna oo arrimahaas la xiriira kama muuqdaan arrimahaasoo idin marka laga soo tago mudane gudoomiye mudane garsoore maxkamadda sharafta leh si waafaqsan qodobka 129 waxaa ka codsanaya maxkamadda maadaama cabdiqani isagana uu yahay qof dhaawaca dhalinyaro ah isla markaana sayd go'ay lugtiisana xaalad caafimaad ay haysato isla markaana uu xiran yahay sidoo kale mudane gudoomiye mudane garsoore maxkamadda sharafta leh maadaama la bixiyay hantidiina laga heshiiyey cid dhibana oo maxkamadda maanta cadaalad ka dalbanayso hanti ka maqanta ama dhiig ka maqan yahay aysan jirin si waafaqsan qodobka 158 oo caddaynaya xeerka ciqaabta Soomaaliyeedna in haddii cabil celin la sameeyo ay ka baxayso meesha ciqaabta mudane gudoomiye mudane garsoore maxkamadda sharafta leh waxaa codsanaya cabdiqani si uu xaalad caafimaad u helo in maxkamaddu xoriyadiisa dib ugu celiso dhanka kale mudane gudoomiye mudane garsoore maxkamadda sharafta leh maadaama cabdisamad uu yahay wiil dhalinyaro ah maxabadii ay ku jirto isla markaana uu yahay qof wax baranayay iskuul dhiganayay waxaa maxkamadda sharafta leh ka codsanaya isagana si uu xaalad caafimaad u helo sidoo kalena waxbarashadiisii uu u sii wato in maxkamaddu isagana ehelkiisa ay ku wareegiso maxdarka dacwadana ay ka dayso xoriyadiisana sida uu dhaqsiyaa badan la siiyo dhanka kale mudane gudoomiye mudane garsoore maxkamadda sharafta leh maadaama cabaas 484 iyo 440 ba caddayn sheegaysa inuu qayb ka ah iyadana aan la keenin muuqaalkiina inaan waxba laga arkeenin waxbana aysan ka muuqanin isla markaana aanan la caddaynin in moobeel uu qaatay gacantiisa lagu qaaday aysan jirin dhibana yimaado maanta dhibana uu hadhaha in uusan jirin isagana waa nin dhalinyaro ah isla markaana ka tirsan ciidanka dowladda una shaqeeya qaranka waxaa ka codsanaya asigana maxkamadda inay xoriyadiisa u celiso maadaama reer iyo ehel ay ka dambeeyaan ugu shaqeynayeen maxkamadduna waa mahadsan tahay sheekh cabdi lagu dhaamiya ها ma ananestaadiya شيء عبدنا نيستي doodaam dhegeysanayno ودغيسايا maxaa fahanti qalada aan leeyahay weeday maxaa maxkamad ka codsanay maxkamadda sharafta leh waxa ku codsan maadaama askari ay hadana dhaawac ahay afiis tarbiye u baahanay Idriel in maxkamadda sharafta leh dib xoriyadiisa siiso si ay caafimaad u helo dhaawac inta ka gartay dhankan sinta agteeda lugta hoose miya ma kor anjarka kor socodkaaga caadi miya ma وديب صاحبك عباس وديب عباس هي عاملين قدومي معك وبح هذا waxaan ugu eedeeyay inay wax ay ka jirin maxkamad maxaa ka codsanay maxkamadda waxa ka codsaa maadaama dad dhalinyaro aan inay xorriyadda dib noo siiso cabdisamed maxamed taakow tuura boqol mootoolihii waday labada askari ee dhaca geystay ayay maxkamaddu ku wareejisay hooyadiis siisayna xorriyadiisa dad wax inay dhacaan rabaana mootada ku wadi way mudane gudoomi ay aan si dar Allah wadaad xabad ma kugu jirtaa inta kaaga jirtaa sint qaska firsal markii oo falkan dhacay xabad kugu dhacday kadib ma dhaqan cilin loo geey maxaa rabtaa maxaa codsanay maxkamadda ka codsanaysaa maxkamadda waxa ku codsanay inay xorriyad siisiisa oo caafimaadka iyo iskuulka barashadana oo sii dadaan hooyadiisa maama kaale maama wiilkaaga meeqo jira maama 14 sano haye arday ahaa inta ku ogeed waxaan ku ogaay inuu muxuu ahay mooto waday galbihi haye gelinka dambana oo arday sideedaad oo wax bartay mootada in badan ma wadin oo wax yar aday amarkaana goorba ku dhici rabay wax yar wada in badan xataa ma wada aw abis aw ma fadhiya abis xamaali way ma joogo hadda maqaya xamaali oo ka baaqa karin oo ku shaqeeya abis iskuulkiya ka bixiyay iskuulka lagama bixin yaa ka dhiibay iskuulka fiigis lacagta waxaa ka bixiya marna qaraabo wax oo adeera ka baxsho marna anaga iska bixin marka maadaama ay saas aheeday hadda asaga laba bilood asaa iska bixinaya asaa iska bixinaya miya meeqa jirna waay 14 jir waay qoyska mooda joogan aabahay aad mooda joogtiin wada joognaa marka mootada ku shaqaystaaba gelinka dambe ku shaqaystaa miya calaashaan mootada hadda markuu ku dhaawacmaayo agteeda wadayba toos uma wadi jira awal marka saas uu dhaawacmay shaqo hadda toos oo ababiil ka bixiyo amba laga warsugaay meehana waxay ahayd wax wada ku meel gaar oo maalmo u wadaay dhaqan celina la geeyay wiil calaashaan hadda markuu dhaawacay maaho markuu dhaawacmay isbitaal la dhigay isbitaalka markii la dhigo xoogaa soo roonaaday aan dhahnay intii looga helaayo kama qali karnay dhaheen anaga qolada hadda oo isbitaalkan cunugana waa yar yahay dhaheen xabadana meel oo dhow kuma jirto u raadsada muxuu ahay wax idin qaada amba dibad amba sida aad u heli doontiin
marka isbitaalkii waa awoodi weyn oo waa ka soo bixina mar walba ilaa sariirtana waa lacag wax walba lacag laga rabaa maahno waa isaga soo bixina gurigood daawo noogu qaadahaye waxaan geynay muxuu ahaa meel oo dhaqan celina daawadiisa lagu siihay oo saasa marka dawladda noogu timiday waa laga soo qabsaday dhaqan celinta marka maxay u geyseen calaashan si uu uga bixin oo meeshaas oo daawadiisa noogu qaato isagana ugu nasto muxuu ahaa daawada lagu siiyo intee degantiin degmadee kaarana deganaana maama wiilkaaga dad oo inuu wax dhacayn loo haysto mooto ku wadaal leh waa maqlaysa ma hodooda haa hadda maqlay adiga go'aan gaarba maxaa lagu sameynaa in la xurriyad laysi oo aan asagaaba dhaawacahe waa jecelahay waa jecesha haa oo aan xakamaysto haddaba markuu dhaawacmo ilaa hadda waa ku dadaalaya maama wado wiilkaaga hadda xaaladiisana la soco insha allah daaweysane waa mahadsantii insha allah saldhigga oo idin dhow ayaana xaaladiina idinka warhaynaayo wiilkaaga si fiican ugu warhay odagana u sheeg wiilkaaga mas-uuliyadda kaa saaran dheh waa mahadsantii insha allah gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho.